السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة وناكسن دمانتين ولا ليال سود وهذا ما أنت مقال كان وحين كجاه لنا قاب كلودة شيء قرشة جناعسي business plan وحن رجينا إن بدن وإن كم يدو مقال كان داونا يا إن تكفكري سين نيوه شغال النماذج كبح قربها كلابو أما يعني العج والرسول العج كان مشروع أما جناعسي بلو intaadan hadaba ganacsiga bilaabin sideen la socono suuqan dhaqaalaha ama suuqan ganacsiyada marka koowaad intaanan mashruuc la hirgelin ama si aan adeeg la qaban service waa in aad leedahay qorshe ganacsi business plan waa in aad leedahay hadaba business plan kan ay rabnaa in insha Allah muuqaalkan ay ku qeexno qaab fudud oo beginner ah dabcan technical badan ayuu leeyahay oo marka shirkad weyn loo dejinayo qorshe ganacsi waxyaalaha report la qoro oo documenti aad weyn weeye oo executive summary leh waxyaalo badan leh financial key leh marketing key leh and operation key leh waxaas oo dhan oo technical ma rabo insha Allah inaan guda galo laakiin waxaan rabaa inaan idinku soo bandhigo qaab inaga deegaankeena ka Soomaali ahaan qaab fudud afar qorshe aad sameyn kartid marka aad ganacsi aad rabtid inaad bilowdid ayaan insha Allah rabaa inaan muuqaalkan aan idinku soo bandhigo qodobka koowaad walaalayaal waxa weeye aan ugu muhiimsan aan rabaa inuu qof kasta oo Soomaali ah dalka dibadiisa iyo gudihiisaba joogaba ee raba inuu ganacsi bilaabo qodobkan waa muhiim waa inaad sameysid waxaan loo yaqaan marka qorshe ganacsi la dejinayo market research ama market analysis ganacsigan aad bilaabaysid iyo meesha aad ka bilaabaysid waa in aad baaritaan xeel dheer inaad ka sameysid weeye ma looga baahan yahay ganacsigan aad hirgelinaysid ma looga baahan fursadii ma ka banaan tahay demand supply and demand waa inaad fiirin kartid baahi intee leeg ganacsiga meeshan looga qaba ma ka jira oo dad ganacsigan sameeyo oo competitor oo kula tartamaya ma jiraan tusaalahan waxyaalaha in badan igu soo dhaca marka dad qurbaha joogay la soo xidhiidhaan dhan sakriyo waxaan rabaa inaan wadankii ku laabto ganacsiga ka sameeyo ama ay dadka qaar dhahaan sakriyo waxaan joogaa magaalo Hiblaayo Garowe ayaan joogaa Muqdisho ayaan joogaa ama Hargeysa ayaan joogaa waxaan rabaa inaan ganacsigaas ka sameeyo soo sheeg ganacsi aan ka sameeyo intaan anigu ku oran lahaa ganacsiga samee ganacsigu ma aha waxyi meeshan aad joogtid ka baad fursadan aad isleedahay samee ma ka banaan tahay adiga ogaan kara suuqeeda mar ma ku dayacan tahay ma ku liidata ma laga dhex furi kara hadii aadan ba market analysis aadan sameyn oo aadan suuqi baadin oo si degan aadan oran war waxaan suuqa maqaali bay ku yihiin ma kala go'aan meel fog miyaa looga keenaa meel dhow ma laga heli karaa imso qof ayaa iibsada hadii aadan qorshayaashii aadan adigu xogti suuqa soo baadin wax kasta iska firtid hadhowto wixii doona kala kulmi kara marka qodobka koowaad walaalayaal waxa muhiim ah in aad market research aad sameysaan qodobka labaad waa in aad ogaatid you need to know your customer inta aadan ganacsigan aadan furin macmiilkii ka gadan lahaa ama macmiilkaad u bandhigi lahayd waa inaad aqoon u leedahay waa inaad garanaysid ganacsi baan iska furayaa mana ogi inta jeer la iibsado badeecadiisa mana ogi dad ka nooca gadanaya mana ogi yani ma guuleysan doona ama khasaari doona waa waxyaalaha ganacsiyeedna aad iyo aad xaqiiqatan badi ugu khasaaraan marka you need to know your customer tusaale ahaan hadda waxaan rabaa inaan qofku fahmi karo inaan ugu soo tusaaleeyo ganacsiyada kanaalka kaga hadalay kuwan isleeyahay way ugu guuleysay badan yihiin ama se way guuleysan karaan waxa kamida greenhouse ka kamida greenhouse waa beerashada casriga ee qudaaraha qudaarta lagu beero noocyadeeda kala duwan ama yaaya ha noqoto ama qaybteeda strawberry macmacaanka ha noqoto ama barbarooni ha noqoto cash cropka kala duwan ama carrot ha noqoto waa qudaarta casriga ayaa lagu beeraa marka tusaale ahaan hadda ganacsi greenhouse hirgelinaysid videogan ay sameeynay qofkii raba inuu daawado greenhouse sida loo hirgeliyo waxaad ogtahay macmiilka ka gadanaya waa mare hotelka cuntada sameeyay dadku ka cunteynayaan inuu qudaarta ka gadanayo ogtahay waa mar labaad waxaad ogtahay guri kasto oo dab laga shido quraac iyo qado iyo casho laga sameynayo inay qudaar ka iibsanayaan oo dadka xaafadaha magaalada ka dhisan oo dhan ay macmiil ku noqon karaan waa mar saddexaad waxaad ogtahay in maalin kasta la gato badeecadiisa oo qofku qudaar iyo cunto kama maarmo
maalin kasta wuu iibsanaya ama isbuuci mar ha iibsado ama 2 jeer ha iibsado waa tusaale ahaan waa hal ganacsi aan kugu tusaaleynayo haddaad electronic gadaysid ama haddaad gadaysid dhar oo kale imsa jeer ayaa dharka la gataa waa inaad ogaatid macmiilka wax gadanaya ee Soomaaliga sidoo wax ku qiimeeya anigu dadkeena markaan fiiriyay badi waxay wax ku qiimeeyaan wax qiimo jaban oo sahlan oo si fudud ku gadan karaan ayaa qofka macmiilka Soomaaliga wax ku qiimeeya xagay ka timi iyo ma China laga keenay iyo ma Ethiopia laga keenay iyo ma Dubai ba ma fiiriyo qofka Soomaaliga wuxuu fiiriyaa waxaan ma iibsan karaa ma goosan karaa ayuu fiiriyaa marka qiimo macquul oo naasilan waa inaad macmiilkaaga you need to know your customer waa qodobka labaad aad dejinaysid marka aad qorshe ganacsi aad sameynaysid qodobka saddexaad markaad labadaas soo ogaatay inay fursadii bannaan tahay macaamilna loo hayo waa inaad ogaan kartid qaabkaad ganacsigan u hirgelinaysid waxyaalaha uu kaaga baahan yahay waxyaalaha uu kaaga baahan yahay qorshihii lagu hirgelin lahaa iyo hawl maalmeedkiisii imise shaqaale ayuu u baahan yahay haddii greenhouse ka tusaale ahaan ka soo qaadno oo kale dhul intee leeg ayaan u baahanahay oo cabir ahaana dhulku aan u baahanahay imisa waxa gali kara imisa shade net baa gali kara shabaga greenhouse ka imisa taangi oo biyaha loogu keydiyaan u baahanahay imisa tuumba ayaan u baahanahay imisa wiil baa iga shaqeynaya inta wiil iga shaqeynaya imisa badeecadood oo kala duwan imisa kiilo barbarooniya imisa kiilo yaanya imisa kiilo oo strawberry ayaan ka soo saari karaa waa in aad garanaysid qaabkaad u hirgelin lahayd iyo waxa ay soo saarayeen you need to know your operations and how will sida loo hirgelinayo waa inaad ogaatid iyo cidii ku hirgelin lahayd qodobka afraad ee walaalayaal hadaba barnaamijkan ugu dambeeyay uguna muhiimsan waa markaad ku dhaqaaqdid oo hirgelisid waxa ganacsiga oo dhan aaba u ah uguna muhiimsan ganacsi kasta oo la sameeyo ama si adeeg kasta oo la hirgeliyo waa inuu waxaan la iibiyo waa in ay dhacaan marketing and sales suuqgeyn waa in istiraatiijiyad jirto waxaan lagu suuqgeeyo laguna iibiyo ganacsi hadaanu waxba iibinayn wax faa'iido ah male wax dhaqaale ana ma soo saarayo marka waa inaad garan kartid qaabka aad ganacsiga aad u market gareyn lahayd u suuqgeyn lahayd oo hadda waxaan ka soo hadlaynaa digital marketing waa daawan kartaan muuqaalka halkaas aan idinku soo dhajinayaa qaabkaad u hirgelin lahayd waa in aad garanaysid ganacsigan aad u suuqgeyn lahayd dadka aad ugu bandhigi lahayd macaamiishaadii ay soo qeexnay qaabka aad ugu bandhigi lahayd waa inaad garanaysid ma Facebook baad u marinaysaa oo ku xayeysiinaysaa ma TV baad ku bandhigaysaa waa in ay dadka customerka magaaladaada ku nool ay ogaan karaan inaad badeecadan haysid waqtigay ka heli karaan iyo qaabkay u heli karaan waxyaalaha hadda greenhouse ko kale haday mar saddexaad suuqgeynta ay ugu soo qaadano oo kale waxaad oran kartaa okay macaamilkiisu waxa weeye imisa hotel ayaan qudaartiisa u geyn karaa imisa supermarket ayaan qudaartiisa aan ka soo iibin karaa oo iisi iibin karaa imisa tuulooyinku waxa weeye qudaartu qaali bay aad ugu tahay tusaale ahaan magaalada joogtid imisa gobolka joogtid imisa tuulo ayaa ku taalo oo kale intaasoo tuulo qudaartiisa ma geyn karaa oo ma ka soo iibin karaa oo kale waa inaad leedahay istiraatiijiyad aad waxaan aad ku iibisid oo isku suuqgeysid waa inaad leedahay hadaanu ganacsigu aanu iibsamayn badeecadiisa aan la gadayn oo la iska dhex fadhiyo wax faa'iido ma soo saarayo khasaarihiisu wuu soconaya marka dambena suuqu ka baxaya sidoo kalena waa inaad leedahay hadayn as a bonus ahaan qaab hal abuur ah oo aad ku develop garaysid ku hormarisid ku casriyeysid qaabkaad badeecadan aad haysid kharashkiisa aad u dhimi lahayd una sii horumarin lahayd badeecado cusubna aad ugu sii kordhin lahayd ayaa kamida marka business plan la dejinayo marka walaalayaal insha Allah afarta qodob ee muhiimka qof kasta oo rabay inuu ama hotel dhiso ama shirkad dhismo bilaabo ama wax kala sameeyo waa inuu market research sameeyaa waxaan fursadan meesha uu joogo ma ka banaan tahay magaalada aad joogtid ka sameynaysid waxaan fursad ma kala leedahay inaad baadhid marka koowaadna waa inaad ogaatid hortayada waxaan ka iibinaysaa imsa milyan qof baa ku nool imsa 100,000 qof baa magaalada ku nool imsa ayaa wax ka iibsan kara waa inaad garanaysid you need to know your customer marka saddexaad qaabkee horgelinaysaa xagee waxaan ka keensanaysaa imsa qof ayaa kaaga shaqeynaya waa in qorsheeda ku qoran tahay qodobka ugu dambeeyay ku soo gabagabeynina
qaabkii ayaa dadka u gaarsiinaysaa fariintaada hadda qofka 500 oo kun oo qof magaalada ku nool 500 oo kun oo qof ugu yaraan 30% waa inay ogaataa inaad adigu hebel tahay ganacsiga tahay badeecada noocaas aad haysid markaas ay ku iimaan karaan laakiin haddaan loo suuq geyn lana ogeysiin cidna ku iimaan mayso dadka kale ayaa fursadaadii ka faa'iideysanaya koobi gareynaya isla markiiba suuqa gelinaya marka waa inaad marketing fiican badan aad samaysid sidoo kalena qaabkaad ugu geyn lahayd oo iibin lahaydna waa inaad qorshe u dejisid insha Allah muuqaalkan maanta sida qorshe ganacsi loo dejiyay kaga hadlaynay fadlan hayla inaad like saartaan si dad badan u sigaaro muuqaalka greenhouse kana bartaas aan soo dhigaya tusaalahan qofkii raba inuu ka faa'iideysto ama si uu hirgeliyo walaalkiisa Kariya Cabdullaahi alayhi salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh